السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وان سلامي كسو دواد summit.com cilmiga barashada kombiyuutarka darsigana maanta waxaan ku qaadan doonaa qaabka loo soo download gareysto ama qaabka loo soo degsado iyo qaabka loogu shubo Adobe Photoshop CC 2019 darsigana maanta wuxuu ku saabsan yahay qaabka soo degsan lahayd videogan marka daawanaysid hadii course-kan member aad ka tahay videoga hoostiisa baan ku dhigi doonaa meeshaad ka soo download gareysan lahayd qaab noocan ah ay soo bixi doontaa meeshan hadii aad fiirisid waxa ku qoran download for Windows qaybtan kale tan download for Mac OS hadii kombiyuutarkaada ku shaqeynayo Windows inta baa ka soo download gareysan kartaa hadii oo Mac OS oo ku shaqeynayo kombiyuutarkaadana qaybtan kale ay ka soo download gareysan kartaa soo download gareyso file-ku waa 1.70 GB ama 1 GB iyo 70 MB marka soo download gareysatid kadib wuxuu u soo bixi doonaa file-ka qaab noocan ah oo soo bixi doonaa marka file-ka hadda wuxuu ku xiran yahay zip ama waxa ku xiran zip baa ku xiran soo marka si aad u furtid ama si aan u isticmaalno waxaan u baahanahay inaad haysatid program la yiraahdo WinRAR baa loo baahan yahay inaad soo download gareysid hadii kombiyuutarkaada uu ku jiro waa okay hadii uusan ku jirin soo download gareyso WinRAR aan ka furno waa zipka soo marka si aan ugu qaadno zipka waa aan hadhaynaa right click baan leenahay kadib waxaan ka xulanaynaa meesha ku qoran tahay extract to meesha ku qoran tahay oo file-ka magaciisa ku sii qoran yahay baan leenahay click ku sii kadib wuxuu noo furi doonaa wuxuu noo sameyn doonaa file cusub ay ku qoran tahay summit.com Adobe Photoshop CC 2019 soo marka intaanan u guda galin ku shubitaanka ama inaan ku shubo kombiyuutarka Adobe Photoshop intaanan u guda gulin waxa lagaaga baahan yahay adiga laba tilaabo ama laba step inaad martid step kood wuxuu yahay inaad iska hubisid kombiyuutarkaada internetka u daaran yahay oo mu shaqeynaya hadii uu daaran yahay internetkada fadlan iska xir aniga hore buu igu xirnay oo mar hore baa xiray laakiin adiga haduu kombiyuutarka ku furan yahay internetka fadlan iska xir step-ka labaad wuxuu yahay hadii kombiyuutarkaada uu ku jiro antivirus oo ku jiro fadlan asigana block saar ama disable iska saar hadii uu kugu jirin program kale oo antivirus ah Windows kasta waxa lagu keenaa maxaa la yiraahdaa Windows kasta waxa lagu keenaa antivirus baa lagu keenaa dooro setting kadib waxa ka sii doorataa meesha ku qoran tahay update and security click ku sii samarka kugu soo baxo waxa ka sii xulataa meesha ku qoran tahay Windows security ka sii dooro kadib qaab noocan ah kugu soo bixi doonaa kan ugu horeeya hadaa fiirisid meesha ku qoran tahay virus and threat protection click ku sii soo marka qaab noocan ah kugu soo bixi doonaa waxaan ku dhufan doonaa ka labaad qaybta labaad baa aan ii dooran hadii ku dooran qaybta labaad waa inaan ku dhufataa meeshan soo jeed meeshan marka waxa aragtaa virus and threat protection setting meesha ku qoran tahay manage setting meesha ku sii dhufo soo marka real time protection meesha ku qoran tahay iyo downloadka labadoodaba on bay ku yihiin soo marka waa inaad off dhahdid soo marka dib aan ugu soo laabano labada step waan qabanay labadii hol loo diro waan qabanay soo marka waxaan click ku sii doonaa folderkii aan soo habeenay programka uu noogu jiray double click ku sii kadib waxa ku sii jiro folder kaleeto asina double click ku sii meeshan waxaad aragtaa qaybta ugu hooseysa meesha setup ku qoran tahay double click ku sii marka saan wax ma ka taaban doono wuxuuna wadi doonaa meesha noo dhigi lahay iyo language-ka luqadda aan dooran lahayn sidoo baan ugu dhaafi doonaa waxaan leenahay continue baan leenahay wax yar baan sugeynaa ilaa uu nooga dhamaanayo marka uu dhamaado kadib programka ayaan soo furi doonaa start menu click ku sii soo marka waxaad ku dhufataa Adobe Photoshop CC 2019 so automatically ay u daarmi doonaa uma baahan wax activation ah uma baahno maxaa la yiraahdaa crack ina wax ku shubtid si automatically ah buu kugu shaqeyn doonaa waana full version soo marka qaabka markuu kugu soo baxo kadib waxaan ku dhufan doonaa create new baan dhahan doonaa oo document cusub noo sameey baan dhahaynaa soo marka qaab noocan ah noogu soo bixi doonaa hadda Photoshop-keena noo shaqeynayo oo ujeedin insha Allah taala waxaan noo balanaa darsiga xiga wassalaamu calaykum